fariinta ugu muhiimsan ee galabta aan dirayno waa galmudug inay u baahan tahay shirweyne degdeg ah oo la isugu yimaado si looga tashado aayaha galmudug sababta keentana labadii sano iyo labadii bilood ee axmed cabdi kaariye qoorqoor oo meeshaas ku magacoonay madaxweynaha maalin kasta galmudug xubinaan ka go'eysay maalin kasta xubinaan ka go'eysay wax loo qabtay iska daa ceel looma qodin waddo looma dhisin dekad looma dhisin maxaa la yidhaahdaa cisbitaal iyo horumar kaloo adeeg bulsho iskaba daa warkiisa amni la sugana inaan ka hadalnana ceebayba ku tahay waaba ku dambaabaynaa haddii amniga ceebta ay ka sameeyaan aan ka hadalno aniga gaar ahaan waxaa si gaar ii qusaysa 2 sano iyo 2 bilood ka hor rajo waxaan qabnaa war maamulkan cusub soo raba ku yimaada armo oo deegaankiini bariga galmudug ceel dheer iyo ceel buur iyo xardheere iyo hobyo iyo galcad iyo masagawaay ama idin xoreeyaa maanta maba ka sugayno waxay naga joogtaa airportka ma noo badbaadi doona airportka loo samarfay intaasay naga joogtaa maanta maxaa yeelay hadda shiraan u socnaa galmudug si loo badbaadiyo Soomaalida u yeernay iyo dadkii galmudug ka soo jeeday meel aan ka degno iyo in airportka laga degi karo ayaaba su'aal ka jirta waxa intaas dheer hadda warbixinta la soo gaarayso ninka inuu ka soo guuraaba naloo sheegaa anigu runtii lama yaabani maxaa yeelay wixii loo diray labada sano barka uu ka shaqeynayay ayaa u soo dhamaaday marka inuu ushiisa garabka soo saarto oo digsiidii iyo wixii inta soo xirxirta xamar iska yimaado qamaarkii uu dheelay oo la dhamaystirto waa wixii laga sugaayay marka waxaan qabnaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa degdeg in la isugu yimaado si aaytiinka dadka aan ka soo jeednay ee galmudug looga tashado waxaa ciyaal ku dhihi jireen mugtahay filinkaas waa dhammaaday ninkaasu filin dhammaado goostay tigidkiisa meesha hadda dabeesha u socotana waa loo jeedaa nimanka darwaleynta ka ahayna halka ay jidka ay saaran yihiin waa loo jeedaa fool meesha u jeedaa loogu faatixayaha isaga iyo asxaabtiisa waxay la tahay culayskoodii iyo dhibka ay ummadda 5 sano ku hayeen inuu naga dhammaado ilaahay naga soo qatimay ilaahay bedel khayr qaba hanoo keeno waxaa la yidhaha moogta oonkaba oo raxdaa keentay qoorqoor haddaan kuwaanu inta joogin nooma imaadeen kuwaana qoorta noo suray iyaga iyo isaguna hadda waxaan rajaynaynaa inay marli isla baxayaan terminolojigi iyo magacyada cusbaan ka baranay oo ay ka bilaabatay wax la yiraahdo milkiile ee ku dhamaada malxiis iyagana inay xilligan dhamaad doonaan aan rajaynaynaa Soomaali guud ahaan waxaan u rajaynaynaa guul horumar barwaaqo doorasho nabad ah oo qof aad looga fiirsado la doorto qaladka hore kale aan la gelin galmudugna si gaar ah waxaan u rajaynaynaa in doorasho cadaalad ku dhisan oo tii boobka iyo beenta ahayd aan u ekayn mar dhow laga qaban doono waxaan rajaynaynaa kulankan kulankiisa xiga inuu noqon doono Dhuuso Mareeb